عقاش الصلادينta iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka Saaxil ayaa maanta shir jaraa'id oo ay si wada jir ugu qabteen Hotel Mansour ee magaalada Berbera waxay si adag uga soo horjeesteen dacwadda uu xisbiga uu ciidu ka gudbiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Gabiley Maxamed Amiin odayaashan iyo salaadiintan oo halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyay ayaa waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland maxkamadda sare iyo komishanka doorashooyinka ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay oo aan Faysal leeyahay inaad haddaad xisbiga adigu aad la fadhiisto saqiirisay waxba cidna hay xagan cidna haddaad ku dilaalayso iyo haddaad ku malaalayso iyo hadduu wax ku goynayaba ee xor baa tahay cidna ha eedaynin illa xildhibaano muxuu ahaayay rag la soo baxado muxuu ahaayay juhdi oo beera ka soo baxado rag xoolahoodii iyo hantigooda sugayo madaxda beeraleeyihiin waxba ha askatayni shaqana ha ku darsanine ha ku qaado xisbigaagi ha ku qaado waxaad ku yeertaan waa nasiibka waanu midaysan waxaanu leenahay hana laga qabto ninka hororka ee noo badheedhay Faysalna anagu odhan mayno oo inuu u cudiyo adigoo hangoolsita ahayd oo aanu wax isku darsanay oo aanu xisbigii dhisnay oo aanu hagaajinay oo aanu soo saarnay oo aanu qurux badnaynay oo aanu kursigaa ku fadhiisinay oo adigu aad baabiisay nin baa yidhi kala tagnay sheekeen xaqan maayarka Gabiley iyo maayarka Berbera ee aad dacweynayso ee aad dacwad baan u qabaa inaad ruux khalad واقف أرن ماشي قبض معها أرن وقاق معها طمع سيلا أينو أهانو محاكمتنا ويقوتها شرعي وقارتو الجوي محاكمتنا ويقوتها مركة ووعي يعني دستورك محاكمتنا ويقوتها إنا تدح سنوه ونضحق والله مشرع تاي عيرو إنو قدومية بارلمان كيو هاي الصوب حسبكي وطني وارقاش كبيري وهرو قاش ميه من مركة وأول قبوبة جوغا شرعي قالورانيا وأنو دينا أننا سكمت بينو نايم مانتا ما كلا عقل بدين ما كلا حصانينو إنه كلا بدبادية وحويا الحجبان أو ترصدو فيصل علي ورابه هانتي أمودي منو سقولي هاي هانتي قراء لك على هاين عد كلا ورطة لك على هاين حبايا نسكت ترصدناي وينو كلا قورني هاو حويا القوام الله ولا لبدا معايب إبل هان اسكو بيشا إديغان هان اسكو ديغان كا إنك اللي نادو فيصل على ورابه وأنو كتر سنة إنو حكيمو فربضان وهروسو جيري وأنو كتر سنة إنو أرمو بدان وصول نغنغلي ما أنتانو كوغادان وير بربران هاي أرمي وير دلقات كيدانو لهاين أري كيدانو لسوغيني لكن ما توحانو مغاني يدفيني نقادا معطي erey kastoo ilaado jawaabteeda aanu bixinayno oo aanu ka hadlayno oo aanu garab taaganahay mar haddii ay maamulkii marayso waxa maamulkayaga wixii dhaleecayna ee loo geysanayo inaanu nahay qaar ka damqanaya hadday kula noqotay in aad jabiso rag wixii ay isku ogeydeen oo aanu kaaga tagnay oo kaaga dul qaadanay waxaa maanta naga kaa daba keena waa waxaan naga kaa qaban labada maayar ee ka soo jeeda beesha Subeer Awal ee Gabiley iyo Berbera haddii aad faraha kala bixi weydo waxaanu ku baaqaynaa oo aanu ku sheegaynaa inaanu iska kaa celin doono إذن عبان ما يدعاي مايو عدالات بانو بكدورنا تشوط بانو بكدورنا تدكينا قصتا بانو كوي أول قبول ما في يالي ماي أول قبول ما في يدي يالي ماي يدي يدي وبديلي وصوت عليه وصوت شيء إيه معنى اليوم انت عايزين في المهم وروح على ذكاء صلنا إن يدل إسكتاينا كاقبطان يا بانو وحنا هاي بانو سوتشيدنا ونكو إيدينا وحنولين هاي نكا فيصل على ورابه واتي لك ربحي
waxbaa la kala gurtay arrintiisu waxa weeyaan waa fadhiid xisbigiisu waa fadhiid xisbi meel haysta maaha xisbi haddii ay baymaya tamarinaya maaha waxaanu leenahay faragelinta ha nagala baxo waxaan leeyahay xisbiga kulmiye ee la galay ee xukuumadda ah ee maanta sharafta badan ee ummaddu isugu tagtay ninka galay ma lukuudba ma kii yuhuudda waxa ku sheegay sawde ilaa ummadoo dhimo waatan ilaa wada gasha axsaabti waxaan leenahay odaygu dee mutacallim weyna uu sheeganay isaga maanta haddii la weydiiyo maxkamad oo ay ku dhowdahay oo la yidhaahdo faysalow xisbigii u cidban ka war meeshaad marisay wuxuu ingiriisku yidhahaa those who live in a glass house must not throw stories ku dha dadka quraanadaha qalada ku jirow ha tuurtuurina dhagxan war waxa weeye adiga imika in lagu saaro maxkamad adiga ayaa u qalma waanu ka ergoonnay dhawri 75 nin ayaanu kaga ergoonnay waar soo fadhiisiyaanu dhiciida galow wariga soo qabto soo fadhiisiya lama soo fadhiisin maanta arrintaa uu ku jiro wax la qaadan karo maaha wadiyaaraheen xisbigii markuu dumiyey ragguma meeshu ugu xidhnaanaya ya raggu dee waa madax xukuumadduu raacayde oo xisbigeeduu raacayde oo haddii aan la yidhaaho xisbi aqlibaa xukuumigaabuu raacay raggu waanu raacaya haddii hadduu ugu xidhayay raggu war ninkaa berigii hore maydaan qabanna cabatin hore idiin yaalla maanta qabta ninka oo ka qabta ragga dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera ayaa maalmihii ugu dambeysay si weyn u hadalhayay dacwadaasi laga gudbiyay gudoomiyaha golaha deegaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Gabiley waxaana ay sheegeen in ay dacwadaasi tahay waxba kama jiraan labadan maayirna ay kamid yihiin maayirada ugu waxqabadka badan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera